بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ah shanta bisha September waxaan ka hadlaynaa mar kale xariga sharci darrada ah ee afduubka ah ee lagu hayo xogayaha warfaafinta iyo xuquuqda aadanaha ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS wariye Maxamed Ibraahim Bulbul sida aad la socotaan Bulbul waxaa laga afduubay magaalada Muqdisho gudaheeda 17kii bisha dhamaatay ee August 2023 ilaa iyo maanta oo 20 maalmood laga joogana weli wuxuu ku jiraa afduubka waxaa hadda soo korortay oo aan ogaanay in telefoonadii gacanta ay u isticmaalayay Maxamed Ibraahim Bulbul la jabsaday telefoonadaas oo ay ugu wardambeysay maalinkii la xiray ama la qabtay ama la afduubay oo 17ka bisha August ahayd tan iyo maantana gacan kuma uusan hayn baaritaanada SJS ay sameysay xubnaha familka ee nala soo xiriiray iyo qaar ka mid ah saaxiibada ayaan ku ogaanay inuu jiray dhaqdhaqaaq telefoonada Bulbul laga sameynayay gaar ahaan aaladihiisa WhatsApp-ka iyo baraha bulshada gaar ahaan barta Facebook-ga waxaan ogaanay in laga soo bilaabo 22kii bishii August maalin Talaado ah sanadka 2023 saacadu markay ahayd 12:48 waqtiga maxalliga ah ee Soomaaliya in mid ka mid ah telefoonadaasi WhatsApp-kiisa la isticmaalayay oo uu shaqeynayay waxaa telefoonkaasi lagala xiriiray qaar ka mid ah xubnaha qoyska iyo dad ehel ah oo la weydiistay lacag telefoonka ku xiga waxa uu active noqday ama la active gareeyay isla maalintaas Talaadada 22ka bisha August 2023 saacada maxalliga ah ee Soomaaliya markay ahayd 1:56 PM waqtiga maxalliga ah gaar ahaan waqtiga habeenka ee PM-ka isla telefoonkaasna waxaa xiriir kale lagala sameeyay dad saaxiibo la ah Bulbul oo sidoo kale la weydiistay lacago waxa la yaab leh Bulbul maadaama uu ku jiro xabsi afduub ah oo uusan awood u lahayn inuu telefoon dad kula xiriiro cidda sameynaysa dalabka lacageed ee telefoonadiisa laga soo dhex weydiinayo dadka ehelka qoyska qaraabada iyo saaxiibada markii aan raadraac buuxa ku sameynay waxaan ogaanay inaysan jirin cid kale oo arrintaas sameyn karta oo aan ka ahayn cidda Bulbul gacanta ku haysa oo ah dadka uu afduuban yahay oo ay ugu horeeyaan booliiska CID-da taliska nabad sugidda iyo wixii la halmaala waxaan cadeynaynaa in cid kasta oo lagala xiriiro telefoonada Bulbul ay ogaato oo ay u cadaato in cidda soo xiriiraysa ee lacagta weydiisanaysa uusan Bulbul ahayn laakiin ay tahay dadka gacanta ku haya sida CID-da booliiska nabad sugidda iyo wixii la halmaala waxaan sheegaynaa wax kasta oo telefoonadaas lagu geysto cid kasta oo lagala xiriiro iyo dhacdo kasta oo telefoonadaas ka dhex dhacda tan iyo 17kii bishii August 2023 in mas'uuliyaddeeda ay leeyihiin oo ay qaadayaan dadka Bulbul haya oo afduubay oo ilaa maanta uu gacanta ugu jiro waxaan nasiib darro ah in qof xabsi kugu jira ku afduuban aan xorriyad lahayn wax go'aanan aan lahayn in telefoonkiisa iyo aaladihiisa gaarka ay dadka uu kula xiriiray sida WhatsApp-ka Facebook-ka iyo aaladaha kale sida emailada aad gasho oo aad weliba samayso xiriir iyo dhaqan foolxun oo ah weydiisasho lacag oo dad kale aad weydiisanayso adigoo raba inaad ku qalado qofka xiran in dadkiisa aad ku qalada aad doonayso waxaa sidaas oo kale aan shirkii ka horreeyay aan ku cadaynay in lacag EVC ah oo telefoonka Bulbul ku jirta ay maqan tahay sidaas oo kale agab kale oo uu watay oo hore aan u cadaynay in sidoo kale ay maqan yihiin waxaan markaa rabnaa inaan ku celiyo oo aan sheego in dhammaanba agabka elektrooniga ee kala duwan ee laga qaaday Bulbul oo ay ku jiraan saddexdiisa telefoon in mas'uuliyaddooda ay qaadayso ciddii qabatay iyo cidda ilaa iyo maanta gacanta ku haysa oo ay ugu horeeyaan taliska CID-da iyo xubnaha taliska nabad sugidda ee magaalada Muqdisho su'aasha isweydiinta leh waxay tahay mar haddii dhululkii la qaatay mar haddii guryihii la qaatay mar haddii boosaskii banaanaa la qaatay hadduma waxay maraysaa dadkii noolnoolaa hadduma waxay maraysaa qof xiran oo afduuban oo xabsi ku jira in qoyskiisa lacag laga weydiisto oo laga dalbado taasi ma waxay noqon kartaa oo aan dhihi karnaa waa madax furasho goorme ayaad ka baxaysaan gaajada iyo abaarta goorme
ayaad dhargaysaan goorma ayaad sharciga u soo noqon doontaan oo aad ogsoonaan doontaan inay dembi tahay marka loo eego dastuurka iyo qawaaniinta caalamiga ah in qof xiran aaladihiisa iyo xiriirkiisa gaarka iyo telefoonadiisa loo dhaco haddaba waxaan cambaaraynaynaa falkaasi jabsiga ah ee telefoonka ama telefoonada bulbul loogu dhacay iyo xiriirka sida sharci darrada loola sameeyey dadka oo ay ugu horreyso dalabka lacagta waxaan u sheegaynaa taliska nabad sugidda iyo CID inay ka waantoobaan arrintaas oo ayna ogaadaan waxa ay samaynayaan inay dembi tahay waa mahadsantihiin